guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland ee loo yaqaano tibek waxaa la aasaasay bishii julaay 2011 kitaabkan ayaan ku dhaaranay meel ka weyn la tagi lahaa ma jiro aakhira aan u soconaa dacadaan ugu shaqayno dalka ugu shaqayno dowladda la shaqayno hawshaa culus oo taariikhda gelaysa oo dalkeennu uga guuraayo nidaam u guuraayo nidaamka u guuraayo shacbiga puntland diyaar u ahaa hawsha loo idmaday guddiga ee uu xil saaran yahay waxa ay tahay inuu meel mariyo howlaha la xiriira doorashooyinka dawladaha hoose ee puntland sidaana uu hormuud ugu noqdo hannaanka dimuqraadiyadeed ee puntland guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ah ee puntland waa hay-ad dastuuri ah oo u xil saaran qabashada doorashooyinka dawladaha hoose ee puntland howlaha guddiga waxaa ka mid ah diyaarinta shuruucda dhammaan shuruucda la xiriirta doorashooyinka dawladaha hoose xisbiye ku magacaabay ku dhawaaqidda iyo diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaa kaleeto oo ka mid ah hay-adda diyaarinta dhammaan agabka lagu qabanayo doorashooyinka dawladaha hoose ee puntland intii ka dambaysay sanadkii 2011 puntland waxaa soo maray 3 guddi doorasho guddigii ugu horreeyey waxa uu qabtay howlo ay ka mid yihiin diyaarinta xeerarka guddiga doorashada diiwaangelinta ururada siyaasadeed iyo nidaamka doorashooyinka puntland guddiga waxaa kale uu ku guulaystay inuu abaabulo isla markaana meel mariyo u codaynta dastuurka u degan puntland guddigii labaad ee tibek waxa uu xilka hayay muddadii u dhaxaysay 2016 ilaa 2019 inkasta oo guddigu dhexda u xirtay samaynta isbeddel muuqda oo la taaban karo haddana waxaa la kulmay caqabado dhaqaale iyo duruufo siyaasadeed tibektii labaad ma aysan shaqayn inkastoo uu ilaahay jannada raxmaha siiye axmed kismaayo iyo waliba markii uu dhintay shuuqa deeriye uu sii waday barnaamijkii kana go'nayd inay shaqeeyaan iyo kumidnimada ay muujinayeen haddana waxaan oran karaa wixii ay ka dhaqaaqi weyday inay ahaayeen caqabado dhaqaale iyo duruufo siyaasadeed ayay ka dhaqaaqi weyday marka inaan wixii tala ana ay mar walba noqoto labada dhinac wax ka imaanaya anaguna aan soo raadsano talada guddiga saddexaad oo hadda shaqaynaya waxaa lagu dhawaaqay sanadkan 2019 waxa uuna ka kooban yahay 9 xubnood 5 xubnood waxaa soo magacaabay madaxweynaha dowladda puntland 4na waxaa soo magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka ee puntland guddiga waxaa la dhisay xilli ku habboon oo dowladdu ay talada hayso muddo ka yar 1 sano guddigan waxaa si buuxda u ansixiyey golaha wakiilada ee puntland waxaan idinka rabaa shacabka puntland ee aad u shaqaynaysaan si siman inaad u shaqaysaan waxaan idinka rabaa golaha wakiilada inaad si dhow ula shaqaysaan waxaan fili doonaa inaad noqotaan guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo si cadaalad ah fadlanka u shaqeeya guddiga tibek muddadii yareed ee uu jiray waxa uu la shiray lana tashaday qaybaha kala duwan ee bulshada sida aqoon-yahanada culummada dhalinyarada haweenka golaha wasiirada siyaasiyiinta iyo warbaahinta annaga guddiga doorashooyinka ee puntland shaqadayadu waxa ay ku salaysan tahay xeerar iyo shuruuc iyo wadatashi qaybaha kala duwan ee bulshada xeerarkii intooda badan iyo waxyaabihii la xiriiray shuruucdii iyo waa noo diyaar saatee waxa laga maarmaana inaynu si hawshan ay umar dhasho aanu u baahanay qaybaha kala duwan ee bulshada in aanu la tashi la sameeyno la tashigaas oo laga maarmaan u ah in aanu ka kasbanno way aragnimadii horay aanu hawsheeda ugu sii wadi lahayn si loogu guulaysto in aakhiritaanka la gaaro ujeedadii ahayd in doorashooyin dimuqraadi ah ay ka dhacaan puntland
guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland waxa uu ka qiyaas qaadanayaa waayo aragnimadii guddiyadii ka horreeyey ee tbag 1 iyo tbag 2 iyo talooyinkii ay ka heleen kulamadii wadatashi ee ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada. tbag waxay leedahay 8 sano oo khibrada oo waxaa naga horreeyay 2 guddiyo hore oo runtii aad u dadaalay duruufo kasta maaragtay oo ay soo mareen iyagu intii maaragtay ay karaankooda soo qabtay. waxaan rabnaa inaan ku dul dhisno wixii ay maaragtay ay soo qabteen. waxaan rabnaa inaan sameyno hanaan aan uga faa'iidaysanayno khibradii labada guddiyo hore wixii ay soo qabteen. shuruucda maaragtay noo taalo oo dastuurka u horeeyo oo shuruucda kale oo ay sameeyeen labadii tibiga naga horeeyay oo soo maray golayaasha dowladda. rabitaanka dadka oo cilmi baarisida hadda ay tilmaamayaan xarumahu ay sameeyaan in boqolkiiba 90 iyo wax ka badan ay rabaan in laga guuro hanaankan hadda lagu shaqeynayo oo qabaliga lagu soo dooranayo loona guuro hanaan dimuqraadi oo ka sal balaaran kan hadda jira. markaan nigu waxaanu bilownay inaan waxaas oo dhan dib aan u fiirino review ku sameeyno oo aan ka barano casharadii laga soo bartay isku dayadii hore aan fiirino shuruucda laftigooda maxaa u baahan in maaragtay laga shaqeeyo oo la update gareeyo oo haddana waxaan rabnaa inaan ku bilowno laftigeeda degmooyinkii iyo baadiyihii iyo deegaanada intaan wada marno inaan soo ururino xogo badan oo dadka aan weydiino qaabka ay rabaan in lagu guuro iyo maaragtay waxyaalaha ay isleeyihiin way ku biirin karaan processkan laftigiisa si uu noqdo markaa process ku fadhiya kuna yimi wadatashi iyo maaragtay rabitaan dadku ay rabaan in laga guuro hanaanka loona guuro hanaan ka sal balaaran. haddii lagu guulaysto nidaamka qof iyo cod muwaadinku wuxuu helayaa kalsooni qofeed. waxaa meesha ka baxaya qancintii qabiilka oo waxaa la qancinayaa bulshadii wax dooratay. waxaa muwaadinku dareemayaa ownership waayo codkiisiibuu ku doortay qof uu doonayo uuna isleeyahay isbeddel buu keeni karaa. waxaa imaanaya kalsooni iyo hufnaan siyaasadeed oo dhammaan bulshadu ay qabto. waxaa ka muuqanaya dadka aan hadeer lahayn matalaada dhabta ah ama aan baarlamaanka xubno ku lahayn. waxaa ka baxaya meesha musuqmaasuqii aynu wax ku dooran jirnay. fursadda ugu ballaaran ay dhalinyaradu ka helayaan in la gaaro hal qof iyo hal cod wax weeyaan in ay helaan boos weyn ee siyaasadda, ay helaan matalaad, ay helaan inuu qofka intuu deegaankiisa tago inuu u soo tartami karo, inuu raadin karo boos siyaasadeed. waxaa hadda arkaysaan ama dhaca inta badan in qof dhalinyaro ah markuu arko dhibaato Soomaaliya ka dhacday ama deegaankiisa ka dhacday inuu noqdo qofka ugu horeeya mustaaga, inuu noqdo qofka ugu horeeya gurmad sameeya, inuu noqdo qofka ugu horeeya jawaab bixiya. laakiin wuxuu u baahan yahay sidaas si lamid ah inuu helo boos oo siyaasadani ku galo oo ku metelo dadkiisa oo waxna ugu qabto. tallaabada ugu horreysa ee uu qaadi doono guddigu waa ku dhawaaqidda dhismaha ururada siyaasadeed iyo diiwaangelintooda iyo in la qaado olole waxyigelin ballaaran oo ku saabsan xaqa muwaadiniintu ay u leeyihiin inay doortaan qofka ay doonayaan iyo in deegaanada puntland oo idin la wada gaarsiiyo oo dadka la baro qaabka codbixinta.